xogta buugga ku jirta waxay inoo sheegaysaa markii ugu horreysay wadaadku Sayid Maxamed uu arkay French Roman Catholic Mission waa missionkii Faransiiska ahaa ee markaa kiniisadii Ingiriisku berbera keenay taasoo markaa laga furay ama ku taalay gobolada maxmiyada waqooyi markay taariikhdu ahayd 1891kii markii ugu horreysay dabcan berbera ayaa la keenay kiniisadda laakiin markii dambe waxaa loo wareejiyay missionka berbera magaalada ama meesha la dhaho Daymole oo ah dabcan dhanka marka jidka loo socdo Sheikh sidoo kale waxa qisadu intaa ku sii daraysaa in Sayid Maxamed uu la kulmay inan yar oo marka iskuulka missionka ka yimi kaasoo uu sayidku weydiiyay magaciisa la yaab iyo cado ayay ku noqotay sayidka markii inanku u sheegay John Cabdillaahi oo marka inanka yar John Cabdillaahi la dhaho qiso kale waxay warinaysaa oo marka la xidhiidha qisooyinkan in wadaadku uu la kulmay group amba kolonyo wiilala kuwaasoo marka ka yimi xagga missionka sayidku markuu weydiiyay qabiilkooda amba qabiilka ay ka soo jeedeen carruurtaasi waxa ay markaa dabcan waa qabiilku waa qayb ka mid ah ishaybsiga Soomaaliyeed bay leeyihiin carruurtu waxay uga jawaabeen sayidka in ay yihiin reer father oo dabcan noqonaysa reer baadiri arrintan xogta ka dambeysay carruurtaas inay sheegtaan reer fatherna waxa weeye Ingiriisku carruuraha ay kaniisadaha geeyaan markay reerahooda loo celiyo dib waxay ugu noqdaan diinta Islaamka isagoo marka Ingiriisku taa kala dagaalamaya waxa carruurta kaliya diinta lagalama bedelin magacyadooda lagama bedelin sidoo kale waxa la bedelay xataa haybtooda Soomaalinimo iyo qabiilkooda marka si loogala dagaalamo in carruurtaas diinta Islaamka ku noqdaan waxa qabiilkoodii loo bedelay reer father oo ah reer baadiri waa baadiriga kaniisadda haysta waa marka carruurta qabiilkooda laga dhigay arrintanuna waa arrin ummadda Soomaaliyeed xataa alaanada ku socoto oo sababta isirka Soomaaliyeed dadka loogala dagaalamaya waxa weeye in dadka iyo carruurtaba laga minguuriyo diintooda Islaamka waayo Soomaalinimada iyo Islaamku ma kala harayaan si marka Islaamka si dhaba ummadda Soomaaliyeed looga kaxeeyo waa in identity-gooda Soomaaliyeed la suuliyaa kadibna markaas diinta Islaamka ay ka suulaysaa tanna waxay daliil u tahay marka waxyaabaha sayidku uu arkay isku soo wada duubo kiniisadda marka sayidku uu amba la yegleelay waa tan oo marka gobolada waqooyi maxmiyada protectorate-ka waqooyiga laga yegleelay waa tan sawirkeeda arkaysaan dabcan waa markii ugu horreysay marka ciid Soomaaliyeed la keeno kiniisad oo marka 1891 laga establish gareeyay maxmiyada gobolada waqooyi dabcan halkan waa kan Mission Catholic de Berbera waa French Mission Catholic marka magaalada Berbera 1891 Ingiriisku marka ka dhisay dabcan 7 sano kadib markii beelaha waqooyi Ingiriisku la saxeeyay heshiiska isla markiiba 7 sano kadibna waa kan magaalada dabcan Berbera ka dhistay marka kaniisadda weyn dabcan kaniisadda waxa ku jiray mashaariic kale oo marka loogu marmarsiinayo sida qoodinta iskuulka iyo waxyaabo la halmaalay si marka dadka looga bedelo marka diinta Islaamka dabcan xoguhu way sii socdaan oo sidoo kale halkan sayidku wuxuu la kulmay niman akhyaar oo marka wadaada ah oo Sheikh Madar uu ka mid yahay oo caana oo marka dadka berbera ka soo jeeda ahaa iyo Hargeysa dabcan guri ka mid ah berbera ay ku kulmeen xoguhu way ka hadlayaan sayidku isagu ka duwanaa culimadaas waxay aaminsanaayeen sayidku wuxuu aaminsanaa in nimankan lala dagaalamo maadaama ay soo weerareen diinteena karaamaysan oo marka dhaqankeena bedelayaan laakiin nimankan waxay aaminsanaayeen inaan siyaasadda Ingiriiska la faragashan nimankan culimada dabcan buugga waxaad ka helaysaa The Modern History of Somaliland ayaad xogtan ka helaysaa page-kiisa 67 oo marka waxa weeye qodobka uu kaga hadlayo halgankii daraawiishta ee xorriyadda dabcan marka halkaas ayaad reference-ga ka soo helaysaa sidoo kale sayidku marka isagu ka duwanaa culimada kale ee marka Soomaaliyeed waxay aaminsanaayeen xilliga uga fara badan baa ku jira marka arrintan waxay ku leeyihiin sayidka waxay tan u cadaysay oo u xaqiijisay confirm Sayid Maxamed wuxuu aaminsanaa oo ahayd in Christian colonization gumaysiga Christianku waa wadamadan Christianka inay gumaysanayeen waddan Soomaaliyeed nahay ay marka doonayaan inay burburiyaan oo cirib tiraan diinta Islaamka oo marka ay haysteen dadka Soomaaliyeed ee Sayid Maxamed dadkiisa diinta ay haystaan iyo iimaankooda ayay marka nimankan u soo tafxayteen inay baabiyaan arrintanna wuxuu yiri waa halka sayidka u xaqiijisay oo marka waxyaabo uu indhihiisa ku arkay waana sayidka sababta uu marka halgankiisii
ugu sii dhiiraday dabcan sayidku 5 sano ayuu markaa magaalada berbera ka ololeynayay laakiinse waa lasoo raaci waayey sida buuggu sheegayo oo markaa sayidku wuxuu aaday xagga iyo reeraftigii waa sida buuggu sheegaya xogahan iyo xogo fara badanba way ku jiraan sidoo kale waxaan buugga xogtiisa u cogsanayaa sawiradan halkan waxaad arkaysaan waa masaajid magaalada berbera ku yaalay dabcan xogtan waxaa la qaaday dateku waxa weeye 8 November 1902 waa masaajid ku yaala magaalada berbera halkan waxaad arkaysaan markaa waa ciidamadii ingiriiska militariga ingiriiska oo markaa balbalooyinkoodii ka taagtay iridda masaajidka saad arkaysaan waa masaajidka magaalada berbera ku yaalay halkan waxa weeye militariga ciidamada ingiriiska waxaan waa agabkoodii markaa sadalkii awrtooda iyo waxyaabaha ay saaran jireen halkan waxa weeye ciidamadii dabcan cadaanka ahaa ee markaa dadkii cadaanka ahaa ee ciidamadii saraakiishii ingiriiska waxyaabaha la yaab kale markaa waxay ku tusinaysaa sida ingiriisku markaa ugu milmay bulshada dhexdeeda oo markaa dadku muslim ha ahaadaan laakiin si aynan ciidabadan ka lahayn xataa gaaladii militarigoodii oo markaa masaajidka iridoodii xataa base ka samaystay tanna waxaan magaranaysaa u daliishanayaa sawirka xaggan hoose the mosque at berbera waa masaajid ku yaala berbera officers tent waxa weeye balbalooyinkii saraakiisha in the foreground oo markaa barxadda masaajidka ah on the gallery of the minarets mu'asin calling the prayer wuxuu leeyahay minaaradda waxaa ku dhex jira nin mu'adina oo markaa salaadii eedaamaya marka xogahan aan markaa buugga kasoo xigtay waxaan kusoo lafaaqiyey wargeysyadii kasoo baxayay militariga ingiriiska oo markaa sawiradan ka qaaday xilli ay markaa berbera joogeen waa xilligii gumaystahe marka tanana waxay ku tusinaysaa sida markaa culimada reer berbera iyo sayidku ay u kala duwanaayeen oo markaan idin leeyahay culimadana waxay aaminsanayeen inaan siyaasadda ingiriiska la fara gashan sayidkuna uu leeyahay nimankan aanu iska dhicin oo markaa carruurteennii diinta ka saaraya waddankeenii kaniisadaha ka dhistay marka heshiiskanu beelaha lala galay ma ahayn wax ku qoton annaga haddaan beelaha nahay soomaaliyeed annaga ingiriiska heshiis amba ka seexanay waxba kama jiraan ingiriisku xilligu doonuu kaniisad ka furanayay waa kan ciidamadii ingiriiska oo markaa xataa militarigoodii masaajidka horkiisii ay ka dhisteen balbalooyinkiisii oo ayna cidna ugu aabayeelin cidna ka qarsanayn ula badheerayaan waxaan dhahaya annaga ingiriis harag kaga seexanayna haddaa taariikhda baadho meel ay sal iyo raad ku leedahay male waa iska afgobaadsi laakiin xaqiiqooyinka waxa weeye gumaysiyadan iyo waxyaabahan iyo waxyaaba ka daran ayuu markaa gumaystayaashii reer yurub ay geyiga soomaaliyeed ka samaynayeen cidina ayna ka diideen tanana waxa weeye xaqiiqooyinka aan ummadda la wadaagayo ee markaa aan waxbarashada soomaaliya dadka loogu dhigin waxay kula tahay adiga